السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa safiirka UK Kate oo maanta nagala soo qayb gashay xafladda dhagax dhigga Hargeysa Bypass. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan soo dhaweynayaa safaaradaha kale ee ugu horeeyaan safiirka Imaaraadka Carabta, Taiwan, intaan arkayo iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. dhammaan kasoo qaybgalayaashada waa soo dhaweynaya. waddada waxtarkeeda iyo sida loo dhisay iyo waxa ku baxay iyo hawsheeda intii ku saabsanayd waa laynoo sheegay, waxba kaga noqon maayo. waxaa quraan ku darayaa waxa weeye qaran ahaan waddooyinka oo aada iyo aada inooga dayacan ama ayna waddooyin hagaagsan ma lahayn, waxaynu u baahan nahay inaynu maskaxyo marog soo geyno sidaynu waddooyin u dhisi lahayn. inta laynaga caawiyana waa alxamdulillah, laakiin inagu waynu dhisi karnaan qabaa waddooyin badan. waxaan jecelahay inaan fursad ka faa'iidaysto oon u soo jeediyo qolada ganacsatada ah maalqabeenka dalku inay samayn karayaan waddada Burca Hargeysa oo ay tool ahaan lacagteedana ka helayaan waktigeeda. waayo iminka dee waxaa la helay kambaniyaal fara badan oo shaqada yaqaana oo meesha adoontada kuu dhisaya u baahan u dhaqaale. markaa dhaqaalena waynu abuuri karaa waan qabaa. marka waddadan la furo dhowaan sanadka dambe berbera wajaale ay noqoto waddo xamuul oo baabuur waaweyn isjeedayso, ay waddada inaad aragtay oo ay dhuuban tahay, waxay la tahay socodka dalka ee bari iyo galbeed iyo isku geli maayaan waddada dekeda u shaqeeya. markaa waxaynu u baahan nahay inaynu deg deg u furo Burca Hargeysa. taana waxaan ku dhihi lahaa maalqabeenku lacagtaa waa la heli karaa, waana ka heli doonaan macaashkeedii iyadabe inaynu ku dhiirano. waxaa kaloo noo soo jeedinayaa maanta Somaliland ahaan meel aada u fiican oo ilaahay mahadiyeenu maraynaa dhinac walba. abaartii ilaahay waa inaga jebiyey. koonfurkii inkastoo dad badan uu inaga dilay alla u naxariistay, haddana hoos imika u socdaa oo uu sii degayaa, isaga in ilaahay naga saaro. qaran ahaan nabadgelyaynu qabnaa oo odaynu ku jiraa inaynu madaxdaynu doorano oo tallaabo weyna isu soo dhawaansho iyo dadkii oo wada shaqeynaya waxodyeelanayaa sii kordhisa maalin maalinta ka dambeysa. marka waxaan leeyahay dadka ummaddu ay madaxda ka dhigteen ee siyaasi leh, ee sheekh leh, ee baacimishtar leh, ee nin aqoonna leh, mid la hawlgeliyana waxaa loo baahan yahay inay dadka midaynta iyo isku kalsoonaanta iyo horsocodka u dhiriyaan oo ay ka feejignaadaan wixii dadka shaki kala gelinaya ama dhibaato dhexdood ka abuuraya. sidaasun baynu uga abaal gudi karnaa ama abaalkooda ku marin karnaa dadkii naftooda dalkan u huray ee awayaasheen lahaa ee kuwan isku da-daa lahayn ee maalin walba u dhimanaya danta dalka naftooda u huraya. abaalkooda waxaa qulan ugu haynaa ilaahay oo aynu naxariis jano uga barino iyo wixii ay ku tabcayeen oo aynu si midaysan u hirgelino waa dhowla sarxaad ka dhowr. doorashada inagu soo socota ma dhib badna anugu haddaan dhinac ka eego, waayo waa shacbiya. dadkii baa isdooranaya, way deegaamisan tahay, way gobolaysan tahay, markaa culays badan jiri maayo. waxaan soo jeedinayaa maanta Somaliland waxay ku xiran tahay horumarkeeda iyo adduunku inuu aamino iyo horumarkeedu sida aynu u hirgelino doorashadaasi. waxaan soo jeedinayaa xisbiyadu 3 xisbiba mas-uuliyiintoodu inay ka midaysnaadaan doorashadaasi siday nabadgelyo ugu dhici lahayd. dabcan waa xisbiya tartamaya, xaq dowladina inay waxyaalaha qaarkood ka wada hadlaan. xisbul xaakimka iyo dowladda waxaa khasab ku ah inay dhegeysato soo jeedimaha xisbiyada mucaaridka. xisbiyada mucaaridkana waxaa khasab ku ah inay u hoggaansamaan shuruucda dalka oo marka sharci taagan yahay weliba heer qarana oo laga hadlayo qof dembiga laga hadlaya qarnimada maxuul isagoo u dhimin, waxaa iyagana ku waajiba inay marka horeta qaranka hormariyaan. dabeetana waxaa u banaan tallooltanka xisbiga talada haya ay ku dhaliilayaan ay leeyihiin annaga kaga fiican ama dadkay u sheegayaan taana xaq waleey.
markuu dhammaado foodkuna wixii kasoo baxaya hogaansanaantiisa iyo kolley khilaafooyinaya qoojinteeda inay saddex ka midaysanaadaan horena waa uga ballanay waanu ka qoranay sharciyo badan waanan ku aaminsanahay odayaasha labada oday guddoomiyaasha oo waaya arag u ah doorashooyinka somaliland iyo hawlaheedii inay hawshaa gacawana iska qabanayaan tartamayaasha iyagana intaa lagula soo jeedinaya inay yareeyaan xinifta dadka wax dooranaya iyo kuwa ololaha wadana sidaas oo kale dhalinyaro mid walba waxaynu u soconaa waa horumarka somaliland waxay usoo halgamaysay oo weli socdo oo saddex sanadooda oo intaasoo dhintay oo intaasoo xore baabiyey ma aha inaynu ku burburino waxaa la garanaya labada la sharaxaya ee tartamaya mid waliba waa somaliland mid waliba wuxuu doonaya inuu somaliland horumariyo kii helaaba waa kii kale maxaa dhiiga soo kici midwaad necebtahay mid waliba waa somaliland waad garanaysaa waa laba nin oo somaliland wad timanay taana waxaan leeyahay taasaan ku daraya doorashadeena way kharash badan tahay dib baynu uga fiirsanayna sidaynu wad karayno sanadkana waanu ku soconaa laakiin saacadoo xisaabaadka aada u wanaagsan maalin wata markii lacag badan keena yidhi xisaab galo wuxuu yihi adduunka ma jirto meel marka lacagta ku baxday doorashada iyo dadkii codeeyey la isu qaybiyo ay $5 qofkii ka badan ku hagaagto inaga dhowr iyo 20 ku hagaagaysa inagoo dalka adduunka ugu fakiirsana qofka codeynaya codka dhacaya marka loo qoondeeyo lacagta inaga baxday ama lagu caawiyo lacagta ku baxaysa waata doorashada qura ku baxaysa ogow doorashada maamulkeeda qura ku baxaysa qofkiiba waa $20 maraykan iyo ingiriis iyo kuwii doorashada bartay balaha afrika kuwa ugu qaalisan ruwaad oo kale waa $3 ayaa qofkii ku hagay iyo kasii jaba maxay keeni u qaaliday waa weli waynaa bislaan weli waynu waxay nagu cusub waynu ku carartanaynaa weli ficilta iyagoo hoose iyo hebelyo lagama xantaystay socota marka macquul maaha waxaynu ka fikri doonaa oo wadaagayaasha siyaasaddu iyo aqoonyaha laga tashan doonaa inaynu qabsan karno doorasho waqtigeeda ku dhacda dhaqaalaheeda lasii sameeyo dhaqaalaheedu inaga nagu filan yahay sharciyadeeda iyo xanafiyadeedana aynu ka dhamaystirno guushina waxay ku jirtaan hore ku maraynaa inaga oo ku heshiina mar walba talada iyo hoggaanka sida aynu ugu ballanay haddii waqtiga noqoto lagu bedelayo sida loo codeynayo sida looga heshiinayo waayo soomaalida waxay tidhaahdaa ciddu waxay cabtaa markay cilmiyadu heshiiso dadka siyaasadda wada xisbiyada aqoon-yahanka culimada maxaan ku raha suldaanada iyo xarqada ka soo gala waa cilmiyadii marka hadday garan waayaan si madaxooda loo doorto isu bedelo ama ay qaskariyaan waynu jahawreeraynaa dad badan oo jahawreeray oo dariskeennana waynu arkaynaa dhibaatada ka haysata marka maanta messagekeyga waxa weeye farintaan dirayaa anoo ka faaidaysanaya xafladan in aynu ku talagalno inaynu doorasho dhib yar nabada waktigeeda ku dhacda mustaqbalka da-deena soo socotan u dhigno si dalkeena uu hore ugu maro tan maantana qof waliba uu qofka loo dulqaato maalmo dhaweyto xisbiyada mucaaradka aad bay ugu qaliilo waxa la maray dad tartamay waa la xidhxidhay mucaaradiintaa loo jeedaa xisbiga kulmiya wuxuu doonaya iska reebo dadka in tartamaya dadkii la xidhay saddexdii ugu horreeyay la xidhay kulmiya ahaayeen 2 min xarig baa loo jaray sanada kuwa imika taagana mucaaradka maxaafidka waa wareeyi qofka waxaa lagu soo eedeynayaa criminal forgery sharcigu been ka sheegay xafiis buu waraaqiisii xaday jaamacada aan ahayn buu leeyimid kii la qabto waa nasiibkii kii la helo la odhan maayo hebel buu baxay muxuu hebel u nabad galay hebel hadduu nabad galay lama qabanin lama helin haddii la helna waa la qaban doona laakiin sharci jabay la dhaafi maayo mid waxaaba lagu eedeynayaa inuu dalaal cadow ah somaliland gacana leeyahay haddii la hubiyo maxkamadda deg deg loo geyn waa dembeena wada arkan haddii la waayo halkiisi buu kasii wadan looma diiday doorashadiisi laakiin waxaa la hubinayaa shuruudihii doorashada saxmiyi haddii la maagay maxkamadda cadday xaq buu u leeyahay xisbiga mucaaradka qofkuba inuu sharciga isu taago oo wixii qalada ka doodo oo maxkamadda lasoo hortago sharciyadeena waynaynu aaminaa marka inta aynaan qayrin inta aynaan qas iyo ay xanaf abuurin wixii qaran ku saabsan aynu iska nimaado taa intaasaan ku dhaafay qoladiina farsamada ee wadadan qaabilsan koridoorka oo dhan qalab badanna waan arkay dad badan oo aqoon leh maanta uu ku jooga bridge-kan soo eegay dhibaato ma qaban laakiin ciidii waxa qaaday bilska soo baxay
sibil hore waa dhowtaan ku xidhnay midna wuu iska xajiyay midna wuu kiina uu qaatay dee waxaad yeeshaa maanta taga oo adiga dadka badan kula jooga bariishka halkiisii iyo si aamina waa inaa u dhistaa oo nigo ka faa'iidsana tiirkada iyo arrinta kuwa kale hadday joogtaan shirkadahan wixii laga faa'iidaa aynu gelisana wixii aynu ka gelin karno waayo inu arkaa roobabka xoog bay keeneen cimiladu isbedelaysaa kolba waxbay nagu soo baxaya tabarteenu way yartahay laakiin waxaan u qabaa maanta qoladiina afarsan injineeradiina isku tegay waddada ee xaggeena ayuu kuwoodu halkaa dooxa hargeysa bilshadiisa kuwa dhismaha u baahan iyo kuwa joogana inay dayactirtaan waanu iska bixinaa lacagta taana ku talagal kuwa jooga dayactirkooda diyaar waanu nahay kuwa kalena nanoo qimisaan waxa la eego intaa waxaa dheef dalka oo dhan baa sabab ahan waxaan aada iyo aada u kalsoonahay haddaynu isu geyno madaxii mustaqbalka muruqeena ta burco ta laascaanood iyo ceerigaabo tu walbaynu iska dhig tii jabuutina waa laidinka sugayaa me wasiirkii aada iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Abkani maya